السلام عليكم. مالي مغلا سفيعان. السلام عليكم. مقعي وحال دار مهدي. waxaan ahay dhakhtar Soomaaliyeed oo ka shaqeeya xarunta caafimaadka Stockholm. Hadda waxaa ku jira takhasuska caafimaadka oo insha Allah markii ay dhamaato waxaan noqon doonaa dhakhtar ka fadhiya xarumaha caafimaadka. maanta waxaan jeclaan lahay inaan cudurka dhiig-karka aan ka wada hadalno si guud ahaan uga wada hadalno. cudurkan waxa uga hadli doonaa si aad u fahantiin waxyaalaha keeno sida looga hortago si loo daaweeyo iyo waxyaalo badan oo muhiim ah. intaas marka maanta daa fahantiin aniga faraxsanahay saaxiib doona insha Allah. cudurka horta dhiig-karka la dhaho waa maxay? dhiig-karka sidiisaba wuxuu ka mid yahay cudurrada Swedish waxaa lagu dhahaa välfärdsjukdomar. waa cudurrada xilliyada barwaaqada. waxaa saas loo dhahan wax kale ma ahan. cudurradan weligood way jiraan oo intuu bilaadan jira way jiraan laakiin ayaantan si zaid u soo batay. sababta ugu weynna waxa waay hab dhaqameedka bilaadanka iyo hab nololeedka bilaadanka oo isbedelay. waxaa la socotiin waagi horeeto dadka inay ku noolaayeen nolol adag, nolol oo beeraley ama xoolo dhaqato ama si kastoo murqaha laga shaqeyn jiray iyo jirka. maanta laakiin ilaa mahadiis qof kasta si boqor u nool yahay oo cuntada waxa waay neefka arig finjeerka lagu sii wadaa. fadhigana waa bad. waagi hore meeshii waxaa laga yaabaa shaqada loo socon jiray maanta gaari in la qaato ama diyaarad ama tareen wax leh. cudurradan marka oo loo yaqaan välfärdsjukdomar waa cudurro kooban waaye. waxaa ka mid ah dhiig-karka, wadna xanuunka, sokorowga iyo stroke. stroke-na waa qofka markuu madaxa dhiigga uga furmo. cudurradan marka waxay zaid horta ugu badan yihiin wadamadan casriga sida Yurubta iyo Mareykanka meelahaas, laakiin hadda xataa Afrika kusoo badanaya iyo wadamadeena. waxaan u sabab ah dadka miyiga soo guuraya oo magaalooyinka u guuraya oo cuntadii miyiga iyo hab dhaqameedkii miyiga kasoo tagay oo reer magaal noqdaan. cudurkan adduunka hadda maanta xalal doona dhiig-karka. marka dhiig-karka wuxuu ka mid yahay cudurrada number 1 ka ah cudurradan välfärdsjukdomar. waxaa lagu qiyaasaa adduunka oo dhan 40 meel qof meel taagan hal qof inuu qabo dhiig-kar. waddankan Sweden aan joognana ilaa 2 milyan oo qof ayaa lagu qiyaasaa inay qabaan dhiig-kar. marka dhiig-karkana waxaa loo yaqaanaa the silent killer ama dilaaga aamusan. waxaa saas loogu bixin wax kale ma ahan. waa la socotiin cudurrada badanaa calaamaday leeyihiin. qofka hadduu cabeeb qabo oo kale ama hadduu lugta ka go-ayo kala dhihi karta hebel jirka waxaa nabara ku yaalo ama waa lugay. dhiig-karka laakiin calaamad gaar ah oo lagu garta ma laha oo qofka soo iska caafimaad qabo waxaa laga yaabaa hoos inuu qofka ka cuno uu hadhow cimriga dejiyo. marka calaamad gaar oo lagu garta ma laha. marka dhiig-karka waa maxay? dhiig-karka horta waa markuu cadaadiska dhiigga xad la isla ogyahay dhaafo. cadaadiska dhiiggana waxaa keeno waa wadnaha. waa la socotiin wadnaha markuu garaacayo wuxuu garaacmaa dhug 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 dhug. dhugta ugu horeysa wadnaha xoog uu garaacmaa. dhiig wuxuu ku shubaa halbowlaha. dhiigga marka muxuu sameynaa darbiyada xididadu riixaa. riixitaankaas marka wuxuu keenaa quwad ama cadaadis. dhiigga jirka dhan uu soo maraa markii dambeeto wadnuhu kusoo noqon haddana wadnaha wuu dabcaa weli cadaadis uu wataa. marka laba lambar ay kala leeyihiin, lambar sare iyo lambar hoose. lambarka sare waa marka wadnaha xoog u garaacayo dhugta ugu horeyso. kaasaa marka hadduu dhaafo 140 cadaadiskiisa dhiig-kar waa la dhahaa. kan hoosena hadduu 90 dhaafana dhiig-kar waa la dhahaa. dhiig-kar uu qabaa. marka cadaadiska dhiigga maxaa sameeyo? maxaana kor u qaada maxaana yareeyo? waxaa la socotiin haddii xididka si qolkan camal yahay wuu xadidan yahay. haddii maanta hadda waxaa laga yaabaa inay meeshan qaado 100 qof camal. haddii 200 qof soo gasho qolkan intiisa yahay xiriir ay noqonayso ma marka cadaadis kor u kaca. sidoo kaleeto
haddii muxuu ahay qolka yar yahay laakiin dadkan intada yihiin cayaaska kor u kaca xiriiri noqona meesha marka waxaa la dhihi karaa wax kastoo dhiigga badiyo cayaaska kor u kaca wax kastoo xididka yareeyana ama xididka markuu ururo cayaaska dhiigga kor u kaca haddii marka cayaaska haddii xididka waasaco u ballaarto cayaaskan hoos u dhacaa dhiigga hadduu yaraadana hoos u dhacaa cayaaska dhiigga arrintan marka waa muhiim inaad fahantiin maadaama hadhow waxay saameyn doontaa daawada marka dhiigkarka maxaa keena dhiigkarka horta laba nooc u kala baxaa nooc la yiraahdo primary hypertension waa midka maanta ka hadli doono dhiigkarkan badankiisa asagoo badan yahay boqolkiiba 90 ilaa 95 waa noocaan iyo mid kale waxaa jira la dhaho secondary hypertension secondary waxaa loo dhahay wax kala u sabab ah tusaale ahaan qofka keliya beelay keliyaha kaadi sameeyaan kaadi qofka bixlaa jirka ku noqoto dhiigga marka biyaha ku shubmay uu bat cayaas kor u kaca haddii qofkaas keliyaha laga daaweeyo uu keliya u fiicnaadaan dhiigkarkaas wuu ka tagaa sidoo kaleeto haddii muxuu ahay qofka xanuun qabto camal meel luga xanuunayso ama meel kale xanuunayso jirka wuxuu galaa stress hadhow cayaaska dhiig kor u kaca xanuunkaas hadduu ka tago qofka dhiigkarkaas waa ma hayo kaa maanta ka hadleen laakiin waa midka loo yaqaano primary hypertension calaamadna lahayn waxa keenana hal wax kale ma ahan ee waxyaalo badan oo group oo isla socdo waxaa ka mid ah taxarka haddii qof ehelka oo kale dhiigan qabo uu cudurkan qabo adina laga yaabaa inuu kugu dhaco qatar ayaa ku jirta cusbada kaleeto qofka hadduu badsado cayaaska dhiig kor u kaca cusbada kale la isweydiin karaa maxaa keena inuu dhiig kar keento cusbada iyo sokorta maadooyin badan waxaa loo yaqaanaa osmotically active lahaa waa maadooyin biyaha soo jiitaan haddii qofka cusbada cunto ku badsado caloosha tagay dhiigii gale marka jirka dhan waxay soo jiidanaysaa biyo waa biyahaas waxay galayaan dhiigii galayaan hadhow marka dhiigu badana cayaas kor u kaca sidoo kale qofka hadduu buurto xididka duleelkiisa ay yaraanayo oo waxaa ku furmaayo waxaa ka buuxsamayo xeer hadhow marka xididkoo yaraada camal la mid stresskoo kaleeto ama qofka walwal hadduu qabto jirka wuxuu soo daynaa hormoono oo keeno inuu xididada yaraadaan iyo aalamiinta la-aantaba aalamiinta la-aanta waxaa la dhahaa xididka darbiyadiis waxay soo daayaan maadooyin oo xididka waasiciyo hadduu marka qofka aalamiintada yareeyo ama uusan aalamiintaninba maadooyinkaas oo xididka waasiciya yaraanayo qofka hadhow marka ugu dambeyntii sanad dhiiggiis kor usii kaca cayaaska dhiigga kor usii kaca laakiin waxaa ugu muhiimsan oo badanaa la iloobo waa muxuu ahay mandooriga dadka badanaa kuma fakarayaan mandooriga inuu keeno dhiig kar oo wax kasta ka mid ah sigaarka tubaakada daroogada qaadka marka anaga Soomaali hadaan ay qamri iyo waxaas ma naqaano laakiin qaadka zaid noo baadiyay marka in lagu talagalo waxaas sawirkan wuxuu tusaa rag iyo dumarka dhiigooda waxa u dhaxay cayaaska dhiigooda calaamada madowda waxa ka koreeya fiiriya tan ka hooseysa iska daaya leenka buluuga waa ragga leenka gaduudkana waa dumarka qofka bini'aadanka sidiisa markuu yar yahay cayaaska dhiigga waa okay markuu soo gaaro 50 sano 60 70 korkor u sii aadaa automatic waa taas wax ma ahan oo cudurkeena ma ahan waa natural dabiici waa waxaan u sabab qofka markuu dhashay xididkiisa waa jilcan yahay sida lastig camal waa la jiidi karaa markuu laakiin uu qofka uu daayis kor u sii baxdaba xogaay uu sii adkaana xididka oo marka dambe waxa lagu matalaa bir camal u noqdo laakiin bir ma noqdo laakiin tusaale ahaan ragga marka kooda u jeedin kor u aadaa laakiin si wuxuu aadaa oo yani xadidan oo tartiib oo la qiyaasi karo dumarka kooda laakiin ilaa markay yar yihiin oo dhan uu ka hooseeya kan ragga laakiin xogaa markay gaaraan daada ilmaha ku gabaan uu caadada ka joogsato xogaa caaska dhigooda kor u sii aadaa si khatar waliba kan raggu dhaafa xataa
taasna weli ilaa hadda lama oga waxa keeno laakiin waxaa loo maleynaa inay la xiriiraan hormoonada dumarka. marka dhiigkarka waxaa dhahnay see lagu gartaa calaamad ma lahan ba waa run calaamad gaar ma lahan waa si qaas oo si gaar u leeyahay laakiin dhiigkarka qofka markuu qabo waxaa lagu gartaa xoogaa ugu wareeraa wareer wuxuu dareemaa weliba wareer ma ahan oo qolka dhan wareega xoogaa wuxuu dareemaa doon camal uu saaran yahay oo fudfudad uu dareemaa wuxuu kaloo dareemi karaa indhaha inay xanuunayaan in madaxa uu xanuuno aragtidoo kaleeto waxoogaa isbedesho ceeryaamo soo gasho dadka aniga World Central ku arka badanaa waxay ka sheegtaan wareer iyo madax xanuun qofka hadduu wareer madax xanuun ka sheegto inta wax kale ka baaran caaska dhigana ka fiiriyo taas laga yaabaa in sabab marka saa lagu baaraa qofka soo ku ogaadaa maadaama calaamad gaar u salahan saa lagu ogaanaa waagi hore dhiigkarka waxa loo cabiri jiray si xun oo waliba dadka lagu sameyn jirin si xanuun badan oo bilaanin ka baxsan loo cabiri jiray bir dheer qofka xididkiisa la galin jiray gaaraan halbowlaha ama xidid weyn marka si toos loo cabiri jiray laakiin hadda alxamdulillah taas waa laga baxay oo hadda saa u jeedina loo cabiraa geed saa lagu duubaa gacanta xididka dhan la xiraa qofka markaas oo kalkaalisada ama dhakhtarka wuxuu dhageysanaa xididka markuu furmo si loo dhageystaa jirta gaar ah marka labada lambar saas lagu helaa kan wuxuu tusaa lambarada oo dhiigkarka inta yihiin 110 ilaa muxuu ahay 70 waa kan ugu fiican 128na waa normal intaas waxa u dhaxay marka wixii ka sareeyo 149 dhiigkar qofka qaba laakiin saas in baahan marka dhiigkarka see lagu daaweeyaa dhiigkarka siyaabo badan lagu daaweeyaa marka ugu horeysa qofka ku imaado daawooyin waxaas laguma ordo sababta daawooyinka naftigood dhibay leeyihiin ayada naftigood waxay keenaan waxyaalo loo yaqaano side effects ama biibar niyaar marka qofka waxaa lagu dhahaa marka hore miisaanka dhil caalamiintadan qasab aan qofka inuu ordo oo muxuu ahay bira qaado maalintii nus saac ku filan nus saac xataa hadduu awoodi waayo 10 daqiiqo hal mar 10 daqiiqo iyo 10 daqiiqo wax saas weyn maaha qofka inuu muxuu ahay cusbada iyo sokorta iska yareeyo inuu muxuu ahay mandooriga dhanna ka joogsado inta hadduu qofka sameeyo waxaa laga yaabaa miisaankiisa inuu iska dhaco inuu wax ka wada cadaaska dhiiggiisa inuu yaraado uu daawo u baahnaanayo haddii laakiin qofka uu daawo u baahdo intaas ka badan kuwaan hoos ku yaala 40 hoose ama 50 hoose lagu daaweeyaa tan ugu horeyso waa mid loo yaqaano diuretic waxay keentaa kaadi badan qofka kaadi badan oo kaadina waa kaliya oo dhiigga sifeeyaan leh marka dhiigga biyo ku jira qofka uu iska kaadina maxay taas keenaysaa in uu dhiigga yaraado yacni dhiigga volumekiisa inuu yaraado cadaadiskana hoos u dhacaa tan labaad hoose ee mare iyo tan ugu hooseyso waa is-shabahaan ayakana si complex oo hormoon ahaanay waxoogaa cadaadiska dhiig hoos ugu dhigaan waana daawooyinka ugu fiican oo maanta dunida laga isticmaalo nasiib daro kan labaad waxoogaa qufac uu keenaa qufac laakiin cudur ma ahan waa qufaca waxoogaa riiraxyo camal labada dhexda ku jirta beta blockade calcium blockade xididkii waasiciyaan waxoogaa wuu dabca xididka sidii yacni cadaadiska dhiigga hoos ugu dhaco marka dhiigkarka hadda waa ka wada hadalnay calaamadihiisa iyo soo ku imaado marka waayo loo daaweynaa qofka haddii lagu arka dhiigkar maa la iska daayo maxaa daawooyinka lagu qasbaa iyo waxaan oo dhan haddii qofka la daaweynin cadaadiska dhiigga hadduu kor u kaco cudur waayo jirka dhan uu dhaawacaa oo wuxuu sameyn karaa qofka indhihiisoo kale xididada indhaha tago xoogaa inay halaabaan i yaraadaan uu indhaha dhiig fiican helin qofkii indha beelo keliyaha sidoo kale dhiig fiican inay helin uu qofka dhow keliya beelo iyo wadnaha maskaxda xataa dhiiggeeda inuu yaraado
وقفك وهلا وحلا ده ischemic stroke عمل أما وديك فرما ومسكحة مركوا مهم dhiigkarka waxa waaye cudur maanta ku dilay ma ahan bari ku dilay ma ahan laakiin 10 sano 15 sano ka bacdi uu ku dilaa oo tartiib qofka uu cimriga dejina marka qofka hadduu uu isku arkay dhiigkar ama uu rabo inuu ka hortago soo sameeyna waa muhiim qofka inuu horta noloshiisa bedelo sababta dhiigkarka saa sheegnay weligiis waa jiray laakiin aantan u batay waxaana keenay waa nolosha cusub bilaadanku ku jiro qofka marka hadduu aalamiinta sameeyo qudaarta badsado maandoor iska daayo iyo muxuu ahaay iyo nolol waadi degan ku noolaado insha Allah waa iska fiicnana dr maslax asmac uga hadli doono sawirkan marka insha Allah sawdayna insa soo kasay insha Allah